Talaabada Kowaad ee Loo Qaaday Genome-ka Macmalka oo Hadda Socda. Sida haddii isku-dubbaridka genome-ga bini'aadamka oo dhammaystiran aanu ahayn mid dhib badan, saynis-yahannadu hadda waxay isku dayayaan inay dib u dhisaan walxaha hidde-sidaha ee noocyadayaga xagga hoose. Haddii aad rabto warbixintan oo kale, fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Waa mashruuc hami iyo muran badan leh oo loogu magacdaray mashruuca Synthetic Human Genome (SYNG), waxayna shaqadu mar hore ka bilaabatay caddaynta fikradda. Hadafka Talaabadan Kowaad ee muhiimka ah waa in la isticmaalo naqshada genome-ka aadanaha si loo qoro koodka hiddaha ee hal xarig aad u dheer oo dna ah mid ka mid ah koromosoomyadayada, taasoo ka dhigan qiyaastii 2% genome-geena. Dhammaan waxa ku jira dnada waxa loo qaabayn doonaa si dijitaal ah ka hor inta aan lagu dhisin shaybaadhka. Sida laga soo xigtay taageerayaashu, mashruucani wuxuu bilaabi karaa kacaan hidde-side ah si qoto dheer u beddelaya fahamka dnada aadanaha oo suurtogal ah inuu awood u yeesho daawaynta unugyada ku salaysan naqshadeeyaha iyo tallaalka unugyada u adkaysta fayraska la xidhiira. Saynis-yahannadu waxay hadda ku gaareen horumar weyn abuuritaanka nolol la sameeyey. Ku dhiirashada fursadahan mustaqbalka, Wellome Trust oo ka mid ah hay'adaha cilmi-baarista ee ugu weyn adduunka ayaa ku dhawaaqday toddobaadkan inay ku maalgelinayso hindisaha Siin 1 milyan, qiyaastii 1.7 milyan. Cilmi-baarayaal ka tirsan mashruucan oo ka kala socday jaamacadaha Oxford, Kent, Manchester, Cambridge iyo Imperial College London ayaa u sheegay in xilku yahay xadka. Waxay ujeedadoodu tahay inay dhisaan koromosoom bini'aadmi ah oo dhammaystiran 5 ilaa 1 sano ee soo socota. Awoodda lagu soo saari karo genomes waaweyn oo ay ku jiraan genomes ee unugyada bini'aadamka waxay beddeli kartaa fahamkayaga bayolojiga genome-ga oo si qoto dheer u beddelo aragtida cilmiga bayolojiga iyo daawada, ayuu yiri hogaamiyaha mashruuca iyo cilmi nafsiga molecular Jason Tin oo ka socda marxadka teknolojiyada Ellison iyo Oxford. SYNG waxaan ku dhisaynaa qalabka si aan u samayno genome-ga weyn oo run ah. Qaar ka mid ah saynis-yahano madax bannaan, si kastaba ha ahaatee, waxay shaki ka qabaan in mashruuca SYNG uu heli karo ilaa hadda xitaa iyada oo la adeegsanayo ay soo saarka goynta iyo teknolojiyada isku-dhafka sare ee robotic. Abaalmarinta hidde-yaqaanka Robin Lofelbodge oo ka socda marxadka Francis Drake oo aan ku lug lahayn mashruuca SYNG ayaa sheegay in uu aad u xamaasadsan yahay hindisaha sida waxaad si dhab ah u fahmi kartaa wax haddii aad ka dhisi kartid xog. Laakiin inkasta oo dhammaan aqoonta aan helnay tan iyo markii aan si buuxda u taxnay iyo akhrinta genome-ka aadanaha ee 2.3, wuxuu sheegay in ay weli jirto shaqo badan oo la qabanayo ka hor inta aan si dhab ah loo dhisin mid dhammaystiran. Maanta, genome-ga kaliya ee bini'aadamku sameeyey oo si buuxda looga qoray xog ayaa loogu talagalay noole hal unug leh oo leh ugu badnaan 1 koromosoom oo laga sameeyey qiyaastii 2 milyan oo lamaane. Guushaasi waxay qaadatay qiyaastii 10 sano oo shaqo adag ah. Aadamuhu marka la barbardhigo waxay sida caadiga ah leeyihiin in ka badan 3 trillion unug oo leh 4 koromosoomyo iyo 3 bilyan oo lamaane ah. Yaa garanaya inta ay saynis-yahannadu ku qaadanayso in ay kala furfuraan kakanaanta heerkaas. Marka loo eego koromosoomyada bini'aadamka ee synthetic, inkasta oo mashruuca hadda jira uusan u badnayn inuu sidaas gaaro, waxaa laga yaabaa in ugu dambayntii suurtagal tahay in la sameeyo unugyo synthetic ah oo lagu korin karo shaybaarka oo leh waxtar sare, ayuu yiri Lofelbodge. Si kastaba ha ahaatee, ma jirto wax soo jeedin ah oo lagu sameeyo bini'aadamka synthetic. Ma hayno fikrad sida loo sameeyo tan, waxayna u badan tahay inay noqoto mid aan ammaan ahayn. Iyadoo tafaasiisha ay tahay mid caajis ah, kooxda SYNG waxay sheeganayaan inay la shaqaynayaan tacliinta, bulshada rayidka ah, warshadaha iyo khabiirada siyaasadda si ay u baaraan saamaynta anshaxa, sharciga iyo bulshada ee cilmi baaristooda. Mashruucyada kuwan oo kale ah waxay ku xidhan yihiin inay dhiirigeliyaan doodaha bulsheed iyo anshax ee ku saabsan suurtogalnimada iyo cawaaqibka caafimaadka adag iyo arrimaha taranka, laga bilaabo xaqa loo leeyahay in la sameeyo dhallaan naqshadeeyaha ilaa qeexida eugenets. Sarah Nordros oo ah maamulaha ururka horumarinta waxbarashada BET oo ah hay'ad samafal ah oo loogu talagalay dadka ay saameeyeen xaaladaha hiddaha. Dadweynuhu waa inay si cad u fahmaan waxa cilmi-baadhistani ka kooban tahay, halka cilmi-baarayaasha iyo maalgeliyayaasha ay tahay inay si qoto dheer u fahmaan halka ay dadweynuhu rabaan inay raacaan cilmigan.